بسم الله الرحمن الرحيم. أنا waxaan ahay maamo dhibana ah oo qarxii 28kii dhacay ex control gabarna ku weysay gabarna hadda garab taalo gabadha ka dhimatay magaceed gabadha dhaawaca magaceed gabadha iga dhimatay waxay tahay Maxamuud Axmed Allah u naxariisto gabadha noolna waxa waaye Aamina Maxamuud Axmed anoo saas u dhiban oo rafaadsan oo maxay ahayd murug iyo dhibaato ugu hayso oo labadii indhood aan fiirsanay ay midna dhacday midna ay saa u taalo ayaa maxay ahayd xaaladda hadda ay ku sugan tahay ka arki doontiin meediyaha baa waxaa la yiri inay baxdaan tigidhka waa la soo jaray waa inaad baxdaan haddaba xaaladda aan ku jirno iyo xaaladii maalintii hore la keenay qaybna waa laga qabtay wax dawladda Ankara khayr Allah siiyo waxbay nooga qabteen lagu weyn oo kabeen laakiin ma istaagi karaan xaalad marka ay ku istaagaan ilaa ay ka yeelatana fursad waa loo diiday sidoo ku degdegsiya badan waa in la qaaday dhaheen habeen dambe 2 saac yaa yiri waa la qaadaa waxaana tiri safaaradda Soomaalida ee joogta Ankara annaguna markaan u celino oo dhahno walba xataa fursad ma siiya ay gabdhuhu ku istaagi karaan oo dhaqaatiirta aan noo weydiiyo annaga saxiixayna dhaheen waxba shaqo kuma lihiin soo iska bax way iga soo bixiyeen qolkii ayaga munaashaqooday ayaga dantooda gaaray saxiixina ayaga qaaday aan wax shaqo ku leeyahay ma leh haddaba waxaan ka codsanayaa dawladda sharafta leh maxay ahayd khayre iyo madaxweynaha dalka in ay wax ka qabtaan arrintan haddii ay cadaaladu jirto dhibanaan nahay dhibkeen waa in wax laga qabtaa waayahay saas ayaan ka codsanayaa dawladda waayahay maamada Soomaaliyeed aad u mahadsan tahay gabadheeda dhaawacana waa tana xaaladda lagu heedino waa sidan oo lagu kala qaadi karo ma ahan sida ay dhaqaatiirtu sheegeen gabadha muuqaalkeeduna waa ka waan rajeynayaa in dad badan ay garanayaan maadaama ay dhiganaysay jaamacadda Banaadir waxa kala joogta gabadhan kale oo iyaduna ay isku jaamacad ahaayeen sida ku muuqda wajigeeda dhaawacaas ku yaala iyaduna lagu hawaa sidoo kale way jaban yihiin oo xitaa wali kama istaagi karto in kastoo la daaweeyay waxaana loo sheegay in madaxa ay maaragtay wali firir kaga jiro gaarigii caasiga ahaa ee ex control afgooy ku gubtay ayaa laga soo saaray oo aad dareemi karto sida uu ahaa gabadhan ayaa walaasheeda gabadhan maaragtay kale dhaawacan soo dhawow cidda idin tiri waa laydin celinayaa iyo gabadha xaaladdeeda nooga waran adoo soo koobaya anigoo ah magacayga Nasra Xasan cod kor noogu qaad anigoo ah magacayga Nasra Xasan Xuseen ahna dhibane waa walaashay Farxiyo Xasan Xuseen xaaladdeeda aad bay u liidataa lugaha operation amaliye ka gashay laakiin alxamdulillah waa lagu guuleystay caafimaadkeeda hadda waxay ruuran laakiin ma istaagi kartaa gabadha oo qof diyaarad raaci karta ma tahay maya waa qof xanuun haayo in yar ka bacti xanuun ku dhagaayo dawladda safaaradda Soomaaliya waxay nagu raxday tigidaan ila jaray waan ila celinayaa wadankeena ugu la celinayaa dadkana ma ahan dad oo hadda in la celiyo hatta hadda ku dhow goormeel leeyina waa laabanaysiin aniga habeenta baa laabanaysiin 2 saac aan ugu la dhahay caawana waa 4 saac bar hadda xilligan hadleen waa hagaag daawooyinka waa laga joojiyay xanuun baabiyadii laakiin waxaan u dhahay isbitaalka aniga saaray guriga kale aniga geenay 2 bir kadib baa ku soo laabanaysiin maanta isbedelkaas aragnay cabashadiina safaaradda bay la xiriirtaa hadda iyo sidii la macaamiisha Soomaaliya waayahay waa hagaag aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa in maaragtay muuqaalkooda la arki doono lagana soo jawaabi doono arrintooda insha Allah